telefishankan caalamiga ee Universal waxa uu sheegay inaanu kala daadanin oo wali sidiisii uu yahay maamulkii gobolkaasi ee maxkamadaha islaamiga ahi sida laga warhayana dhawaanaha waxa ku xooganaa oo gacanta ku hayay gobolka Hiiraan ururada kale diiniga ah ee iyagu ka soo horjeeda ururkaasi maxkamadaha islaamiga haddaba wariyahayaga kale ee Sahre Yuusuf ayaa iyaduna warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho Sheikh Abdulrahman Ibrahim Macow gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ayaa TV-ga Universal u sheegay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho inaysan waxba ka jirin in maamulkiisa uu burburay isla markaana ciidamadiisu ay ku wareegeen ururka Xisbul Islaam ee ka soo horjeeda dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada maamulkiisu ay sidoodii u joogaan isla markaana howlo ammaanka lagu sugayo ay ka wadaan haatanba magaalada beledweyne iyo wadooyinka waaweyn ee soo gala magaaladaasi waxa uu sheegay inuu ka tagay oo kaliya gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga wuxuuna sheegay inaysan u istaagin howlihii ammaanka ee maamulkaasi uu ka waday xaqiiqa markaan idin sheego wax oo magac oo la sheegi karo waxa meesha ka tagay oo baxay ninka la yiraahdo ninka ahayd ku-xigeenka maamulka ku-xigeenka amniga degmada Ibrahim Shaqiisu Ibrahimna waxaan u maleynayaa insha Allah dadkii islaamka ah ama dadkii xaqiiqada ugu ogi balweyna waxa uu kala tagay ciidana asagana culayska qabsaday anigu waan la socdaa cid kale oo meesha ka tagtay ma jirto waxaan rajaynayaa dhamaan kuwa maamulkana ka tagay iyo kuwa kale oo gobolka degan hadda hore inay islaam ku shaqeeyaan insha Allah wali maamulka la shaqeyn doona mar wax laga weydiiyay ciidamada Itoobiya ee jooga gobolka Hiiraan waxa uu sheegay inaysan jirin wax ciidamo Itoobiyaan oo si toos ah u jooga gobolkaasi Itoobiya hadda gobolka meel yar ay ka joogtaa ee ka soo galeen muddo ay ka joogeen ayadoo gobolada kale oo Soomaaliya ka maqan dhowr jeer meeshaas way ku soo laabatay annaguna hadda go'aan la gaaray oo dalka Itoobiya in lagu soo daayo ah annagana loo sheegin oo dawladda kuma ogin waxaan rajaynayaa insha Allah dadka Soomaaliyeed oo hadda maxay dhibaatada badan ka soo gaartay dagaalkii iyo colaadii Itoobiya ee dalkan geysay oo ka soo gaartay ayaa ka mid nahay haddii Soomaalidu isku raacdo in maxay hadana ay dib u yeelato kale anagu hadda waxaan noqon doonaa qof walba markaas shakhsiyan inuu xaaladda looga hadlay tagaysa laakiin hadda dawladuna go'aankaas ma gaarin annaguna weli ma gaarin Itoobiya dalka soo gasho xaqiiqa markaan weydiinay anaga maxay mas'uuliyiinta iyo dawladda wax go'aan oo cad oo ciidamada Itoobiya ay dalka ugu soo fasaxeen ma jiraan mar wax laga weydiiyay waxa uu joogo magaalada Muqdisho ayuu sheegay inay tahay arrimo shaqo howshiisana uu halkan ka wado oo tagi doono gobolka ana halkan waxaan u joogaa maamulka gobolka ayaan u soo aaday halkan wixii isku xirkiisii iyo wixii howlaha nagu aadan oo gobolkii iyo dawladii iyo iskaga xiran inaan hagaajino haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inaan u laabto dhawaan horaantii bishii hore ayay ahayd markii qarax xoog leh oo ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof oo uu ku jiro wasiirkii amniga dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Umar Xaashi iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsanaa dowladda iyo waliba dad rayid ah wixii ka dambeeyay qarax xoog leh ee ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay ku dhinteen mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa xaaladda magaalada beledweyne ay noqotay mid aad u kacsan walow haatan wararka halkaasi ka imanaya ay sheegayaan in xaaladdeeda ammaan ay aad u wanaagsan tahay